Raysal Wasaraha waddanka Ciraaq ayaa ku gacan Saydhay hadal ka soo yeedhay Kurdiyiinta hadalkaasi oo ahaa inay hakiyeen natiijadii ka soo baxday aftidii madax banaanida ee dhacday bishii la soo dhaafay. Raysal Wasaare Hadal ayaa sheegay in dawladda Ciraaq aanay aqbali doonin wax ka yar in gebi ahaanba waxba kama jiraan laga soo qaado aftidaasi. Ma aqbalayno waxaan ahayn in meesha laga saaro natiijada lana xushmeeyo dastuurka ayuu yiri Hadal. Dawladda Ciraaq ayaa ku adkaysatay inay ahayd sharci darro aftidii Kurdiyiintu ay madax banaanida ku doonayeen inay Ciraaq kaga go'aan inteeda kale. Arintani ku saabsan in Kurdiyiintu ay hakiyaan natiijada aftida ayaa timid kadib markii Raysal Wasaaraha waddanka Ciraaq uu amar ku bixiyay in militariga Ciraaq ay dib loo wareegaan goobaha lagu muransan yahay ee ay haystaan Kurdiyiintu